بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا وناكسن داوديال idilkiin ba meel kastoo aad joogtaan halkani waa marqaati TV kusoo dhawaada barnaamijkeena falanqeynta xogta caalamka dawadaasha qiimaha naga mudan oo barnaamijkeena qodobada aynu qaybtan ku eegi doono waxaa kamid noqon doona dowladda Qatar oo si weyn uga faa'iideysatay dagaalka culus ee ka soconaya wadanka Ukraine dagaal weyn kale oo laga baqayo in uu ka qarxo dunida dowladaha uu dagaalkan u dhaxeyn doono iyo suurtagalnimada in hubka nuclear-ka la isku adeegsado qodobadan ayaa daawan doontaan ee mar kale soo dhawaada waagag daawada fadlan haddii aad nagu cusubtahay nagu soo bir channelka subscribe noo saar furaga balaalka si aad u noqoto daawadeena ugu horeeya mahadsanid aynu ku bilowno maalmo kadib markii uu ruushka yareeyay gaaska uu ka iibiyo Talyaaniga ayaa shirkadda Eni ee laga leeyahay dalka waxa ay maanta heshiis la gashay dalka Qatar heshiiska ayaa khuseeya ballaarinta goobaha ay Qatar ka soo saarto shidaalka dabiiciga ah waxaana sidoo kale qayb ka ah shirkadda Total ee laga leeyahay Faransiiska ruushka ayaa dhimay gaaska uu ka iibiyo Talyaaniga iyo Faransiiska kadib markii mas'uuliyiin ka socda wadamadaasi ay gaareen caasimadda Kiev si ay Ukraine ugu muujiyaan taageeradooda ku aadan codsiga xubinnimada midowga Yurub qorshaha Qatar ayaa ah in ballaarin ku kacaya 28 bilyan oo dollar lagu sameeyo aagaasi uu ku jira gaaska ugu badan dunida waxaa sidoo kale la filayaa in shirkado kale oo ka shaqeeya tamarta ay ku soo biiraan mashruucan qorshahan ayaa sii xoojin doona kaalinta Qatar ee ah dalka gaaska dabiiciga ah ee ugu badan dibadda u dhoofiya waxaana la filayaa in mashruuca cusub uu gaaska ugu horeeyo soo saaro sanadka 2026 madaxa shirkadda Eni ayaa sheegay in shirkadiisa ay qaadatay saami dhan 3.12% mashruuca ballaarinta Yurub ayaa doonaysa inay mustaqbalka ka maaranta gaaska dabiiciga ah ee Ruushka oo ay hadda dalalkooda u isticmaalaan 40% shirkadaha Total, Exxon, Shell, Eni iyo sidoo kale Chevron ayaa Qatar u soo bandhigay fursado ay ku maal gashan karto ganacsiyada ay ku leeyihiin dibadda Ruushka ayaa dhankiisa faa'iido xoogan ka helay tamarta uu iibiyo waxaana daraasaad la sameeyay lagu ogaaday in boqolkii maalmood ee u horeeyay duulaanka Ukraine ay xukuumadda Moscow gaaskeeda iyo shidaalkeeda ka macaashtay 100 bilyan oo dollar wadamada Yurub ayaa culays xoogan kala kulmaya tamarta uga timaada Ruushka maadaama ay xukuumadda Moscow rabto in lacagteeda rubalka looga iibsado gaaska iyo shidaalka taasoo caqabad ku noqon karta cunaqabateynta ay dalalka galbeedka saareen Ruushka markii uu Ruushku ku duulay Ukraine dowladda Jarmalka ayaa joojisay mashruuca dhuumaha Nord Stream 2 ee lagu waday in Moscow ay gaaska ku gaarsiiso Jarmalka ugana sii gudbiso Yurub inteeda kale arrintaas ayaa dhalisay walaac ah in Yurub ay wajihi doonto gaas yari baahsan qiimaha gaaska ee Yurub ayaa aad sare u kacay bilihii la soo dhaafay waxaana dowladaha uu cadaadis ka soo furay qoysaska dakhligoodu hooseeyo Yurub ayaa ilaa iyo haatan iibsata shidaalka iyo gaaska Ruushka inkastoo ay sheegtay inay dhimayso ku tiirsanaanta dalkaasi sanadkii la soo dhaafay qarashaadka ay bixisay dowladda Ruushka ayaa 36% ka yimid dakhliga tamarta lacagtaas u soo xarootay ayaa inteeda badan waxaa bixiyay midowga Yurub oo 40% gaaska ka hela Ruushka halka 27% shidaalkana uu ka soo dhoofsado wadankaasi madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee ururkaasi Joseph Borrell ayaa dhawaan sheegay in maalintiiba ay bilyan euro dakhli ahaan u siiyaan Ruushka weli daawadayaal barnaamijkeena falanqeynta xogta caalamka ayaa daawanaysaan marqaati TV ayuu idinkaga imaanaya markana aynu eegno cabsida laga qabo dagaal weyn kale oo dunida ka bilowday dalalka u dhex mari doono iyo suurtagalnimada hub nuclear oo la isku adeegsado xasaradaha iyo dagaalada saameeyay dunida kaliya ma ahan mid hadda ku kooban bariga Yurub sidoo kalena bariga Aasiya gaar ahaan gacanka Korea waxa cirka isku sii shareeray xiisada u dhaxaysa labada Korea waxaana laga cabsi qabaa in uu dhex maro dagaal la isku adeegsado hubka nuclear-ka sida la wada ogyahay Moscow iyo Washington oo labada dowladood kala taageera ayaa saameyn xoogan ku leh xiisada soo korortay dhoolatusyo ay sameeyeen ciidamada Mareykanka iyo kuwa Koreada Koonfureed ayaa uga jawaabeen tijaabada gantaalada plastika ee Koreada Waqooyi madaxweynaha Koreada Koonfureed ayaa lagu wadaa in uu dhawaan ka qayb galo shir ay isugu imaanayaan madaxda isbahaysiga NATO taasoo sare u sii qaadaysa xiisada iyo cabsida dagaal ee gacanka Korea dhamaadkii bishii May sanadkan aan ku jirno markabka xambaara diyaaradaha dagaalka Mareykanka ee USS Ronald Reagan ayaa ka soo shiraacday badda Philippines waxaana la socday oo weheliyay qaybo kamid ah maraakiibta dagaalka badda ee Koreada Koonfureed si ay si wada jira dhoolatus ugu sameeyaan halkaas kaasoo socday muddo 3 maalmood balse jawaabta Koreada Waqooyi ma ahayn mid soo daahday isla markii uu soo dhamaaday dhoolatuska Mareykanka iyo sidoo kale Seoul Koreada Waqooyi ayaa riday
oo tijaabisay ilaa 8 ka mid ah gantaaladeeda balaastika ee ridada gaaban kuwaasoo ku dhacay isla biyaha ay dhoolatuska ku sameeyeen ciidamada badda Mareykanka iyo kuwa Kuuriyada Koonfureed. gantaaladan ayay Pyongyang ka riday 4 meel oo kala duwan wax ka yar 35 daqiiqo. Seoul ayaa tallaabadaasi ku tilmaantay mid daandaansi ah. madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed oo arrintaasi si degdeg ah uga hadlay ayaa yiri tijaabooyinka Pyongyang waa kuwa halis ku ah ammaanka dunida. dhinaca kalena ciidamada Mareykanka ee ku sugan Japan ayaa iyagana sameeyay tijaabinta gantaalada balaastika ah oo ah nooca qaaradaha isaga kala goosha. sidoo kalena Seoul ayaa tijaabisay 7 gantaal taasoo xisaabta labada dhinac ka dhigtay mid isla eg maadaama ay kala tijaabiyeen min 8 gantaal. dhaqdhaqaaqyada Kuuriyada Koonfureed iyo Mareykanka intaasi kuma istaagin, waxaana madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed uu sheegay in uu ka qayb gali doono shirka madaxda isbahaysiga NATO. sidoo kalena wasiirkiisa arrimaha dibadda ayaa ku sii jeeda Washington si uu halkaasi ugula kulmo dhigiisa Mareykanka Blinken si ay uga munaaqashoodaan ama uga wada hadlaan xiisadaha soo kordhaya iyo sidoo kale hanjabaadaha uga imaanaya Kuuriyada Waqooyi iyo si ay u xaqiijiyaan xoojinta isbahaysigooda xitaa haddii loo baahdo in lagu soo xoojiyo NATO. walaaca iyo walwalka ka soo kordhay gacanka Kuuriyada kuma istaagin intaasi oo kaliya ee sidoo kale tan iyo markii uu qarxay dagaalka u dhaxeeya Ruushka iyo Ukraine waxaa sii kordhayay hanjabaadaha iyo daandaansiga u dhaxeeya labada Kuuriya. Pyongyang waxa ay si aan gambasho lahayn u sheegtay in ay garab taagan tahay Ruushka halka Seoul ay dhankeedana taageero u muujisay Mareykanka iyo xulafadiisa. taas ayaana gacanka Kuuriya ka dhigtay garoon kale oo ay macquul tahay in ay isaga hor yimaadaan labada dhinac. dhinaca kalena Ukraine ay sii wada in ay reer galbeedka ku riixdo inay ballaariyaan dardargelinta gaarsiinta hub wanaagsan si ay isaga difaacdo duulaanka Ruushka. Ukraine ayaa hadda aad u careysan iyada oo dareensan in la gacan bidixeynayo xilli ay sheegayso in galbeedku aysan xitaa doonayn inay dagaalka ku guuleystaan. haddii aad u malaysaan inaan guul dareysanayno kaliya noo sheega oo nagu iraahda waxaan rabnaa inaad guul dareysataan, marka waxaan fahmi doonaa sababta aad hubka nooca hoose ah noo siinaysaan, ayuu yiri Mikhail Podolyak oo ah la taliyaha madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky xilli uu la hadlayay New York Times. warkan ayaa imaanaya xilli uu aqalka cad diyaariyay in qorshe 4 diyaaradood oo nooca aan duuliyaha lahayn ee MQ-1C Gray Eagle ay ugu diri lahayd Kiev la hakiyo sabab la xiriirta cabsi laga qabo in teknoolajiyadaasi ay ku dhacdo gacanta Ruushka, sida ay ku warantay wakaalada wararka Reuters jimcihii iyadoo soo xiganaysay dad arrintan la socda. daawade aragtidaada fadlan qaybta hoose commentiga inoogu reeb. barnaamijkeena falanqaynta xogta caalamka kaga imaanaya Markhaati TV qaybta wanaga intaas. barnaamijkan kan xiga intaan ku kulmi doono nabadgelyo. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.